بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعن داودي الكسو دوادا warka telefishinka Caabud Waaq oo hadaha iyo kale aad ka daawataan xaruntiisa dhexe ee degmada Caabud Waaq waxaana la diyaariyay waa Maxamed Cabdi Jalaqsane qodobada aad ku daawan doontaan inana haynu idinku soo gudbin doonaa alla idankii waxa ka mid ah madaxweyne ku-xigeenka dawlad goboleedka Galmudug Cali Daahir Ciid oo la kulmay madaxda AMISOM dawladda federaalka ah ee Soomaaliya oo warqad cabasho ah u dirtay qaramada midoobay iyadoo ka ashtakoonaysa xafiiska qaramada midoobay ee magaalada Muqdisho iyo maamulka Jubbaland oo ka hortag ku sameeyay weerar ay ku hayeen ama ay ku soo qaadeen ururka Al-Shabaab qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaynu idin haynaa daawadayaal marka horese qadar adeega bulshada ah Amerika iyo Yurub qaaradaha Australia iyo Afrika labadeeda cirif dunida idilkeeda agabka qurxinta oo dhan meeyabka hablaheen casrigan indhakuusha habluhu aanay deynin kareenkii u dambeeyay oogadaada iftiinsha cadceeda idilkeeda ka ilaalin lahaaba alkhayraadku ugu diyaaree macmiilow baloogow qalabkii isboortiga shayna aanu ka maqnayn baad alkhayraad ka helaysaa ayar maad u timaadid caanihii ubadkeena borotiin la asteeyay ilmihii dhadhanshaana runtii uu u bogaayo alkhayraad baad ka helaysaa ayar maad u timaad alkhayraad hadaba carwa alkhayraad ayaa waxyaabaha aad ka heli doonto waxa ka mid ah doornooyin birmaad doornooyinka turkiga kareenka kanza kareenka nuura batal birimo turkish kareenka snail saliida bilan saliida oliva carfisooyin originala kareemooyinka tinta nafaqooyinka tinta kareenka kiilsiriidka dhammaan waxyaabaha uduga sida catarada barfuunada carfisooyinka iyo wixii la mid ah hadaba carwada alkhayraad ayaa waxa ay ku taala inta u dhaxayso shirkadda Olympic iyo sidoo kale stationka weyn ee degmada Caabud Waaq wixii faahfaahin oo intaasi dheerna waxaad kala xiriiri kartaa taleefanada shaashada saaran dunida ku noolnahay gudaha iyo dibaddaba waxa jooga diyaarad ka shaqeeya dalkeena daruuraha korkoodana dul sabeeyo oo idin deegaankeena timid bay u dambeysay maandeeq ilaah mahadi weeye ha u dayma la'aanina shaqaale loo diyaarsho oo adeega daacado dulqaadkoodu badan yahay dayacaynin amaanado macmiishooda daryeela ku diyaar halkaan oo ilaah mahadi weeye dayuuradeena maandeeq ha u dayma la'aanin hadaba xafiiska diyaaradda ee maandeeq airline waxa uu ku yaala bartamaha magaalada agagaarka hodan global wixii faahfaahin dheeri ahna waxaad kala xiriiri kartaa taleefan nambarada shaashada saaran maandeeq airline maantay allah magane maantay rabay ahaatee baan sugayno ka dhowree allah magane maantay mar kale kulanti wacan daawadayaal wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane xildhibaan Cabdilaahi Goodax Barre ayaa waxa uu shaaciyay xilliga ay soo baxayso natiijada fasalka afraad ee dugsiga sare sida ay warbixintaasi inoogu eegayso wariyahayaga Xamdalaki Maxamed Daahir siihaya wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya xildhibaan Cabdilaahi Goodax Barre ayaa shaaciyay waqtiga ay wasaaradda ay shaacin doonto natiijada imtixaanka ay qaaday wasaaradda waxa uu sheegay in ay socoto qiimeynta ardayda sanadkan ka qayb gashay imtixaanka sidoo kale ay socdaan hawlihii imtixaanka si jaamacadaha dalka ay u galaan arday tayo sare leh waxa uu sheegay in imtixaanka sanadkan ay qaaday wasaaradda uu ka duwan yahay kuwii sanadihii hore isla markaana uu ku soo aaday xilli xaalad adag ay ka jirtay dalka sida cudurka coronavirus-ka waxa kale oo sheegay in wasaaradda waxbarashada ay dagaal kula jirto ardayda fasalada qaar laga bootinayo sida arday ku jiray sanadkan fasalka labaad ee dugsiga sare in sanadka xiga loo geeyo fasalka afraad ee dugsiga sare ugu dambeyn wasiirka ayaa waxa ugu baaqay ardayda Soomaaliyeed in ay ku kalsoonaadaan mas'uuliyadooda isla markaana shaqaalaha imtixaanka saxaya ay wasaaradda kordhistay sidoo kale toddobaadkan soo socda la shaacin doono natiijada imtixaanka sanadkan 2020 ayaa wasaaradda waxbarashada Soomaaliya waxa ay imtixaanka ka qaaday in ka badan 34600 oo arday oo ay ku jirtay 500 arday oo ka yimid deegaanada Puntland Xamdalaki Maxamed Daahir CWTV magaalada Caabud Waaq warar ka soo baxay taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybta 3-aad ayaa waxa lagu sheegay in ciidanka ay 4 ka tirsan ururka Al-Shabaab ku dileen waaxiga Baarsan Gooni oo ku dhow magaalada Kismaayo halka 3 kalena ay ku dhaawaceen labadani ayaa waxa ay timid kadib markii
ay ka war heleen duulaan gaadma aha oo ururka al-shabaab ugu qorshaysnaa inay ku soo qaadaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ee ku sugnaa deegaankaasi Baarsangooni. Shirwac Cumar Baaruush oo ka tirsan saraakiisha qaybta 43aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa waxa uu warbaahinta u sheegay in ururka al-shabaab ay gaarsiiyeen jab xoog leh ayna ka furteen saanad ciidan sida uu hadalka u dhigay. Marka laga soo tago wararka ka soo baxaya taliska ciidanka xoogga dalka qaybta 43aad ayaa waxaa jira dagaal kooban oo deegaanka Baarsangooni ku dhex maray maamulka Jubbaland iyo ururka al-shabaab xubno ka tirsan. Madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Galmudug Cali Daahir Ciid ayaa waxa uu la kulmay madax ka tirsan AMISOM sida ay mar kale warbixintaasi inoogu eegayso wariyahayaga Xamdilaki Maxamed Daahir. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybta 60aad ayaa waxa ay amaro dul dhigtay qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ay sheegeen in ay ciidamadii xoogga dalka ay u haystaan istaaf ahaan ayagoona ka soo bixiyay amaba ku eedeeyay in ay ka soo bixiyeen jiida hore ee dagaalka sida ay mar kale inoogu faahfaahinayso wariyahayaga Xamdilaki Maxamed. Maalmihii la soo dhaafay ayaa waxaa kordhay weerarada ay xubno ka tirsan ururka al-shabaab ay ka geysanayaan deegaanada maamulka Koonfur Galbeed, waxaana taliska ciidanka xoogga dalka uu soo saaray qorshe looga hortagayo weeraradaasi. Taliyaha qaybta 60aad ee ciidanka xoogga dalka Generaal Maxamed Sheekh Cabdilaahi ayaa ku amray dhammaan ciidamada dowladda iyo kuwa dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee ku sugan deegaanada maamulkaasi inay dib ugu laabtaan xeriyahooda iyo difaacyadii ay ka shaqayn jireen. Waxa uu ku eedeeyay madaxda maamul goboleedka Koonfur Galbeed inay ilaalo ka dhigteen ciidamadii loo baahnaa inay sugaan amniga deegaanada maamulkaasi, waxaana uu ku amray dhammaan ciidamada inay difaacooda dib ugu soo laabtaan. Waxa sidoo kale uu sheegay taliyaha in madaxda maamulka Koonfur Galbeed ee soo wareejin waaya askarta ilaalada oo ah ee loogu talagalay difaacyada in ay si amar la'aan uga soo wadan doonaan in si ciidamadaasi ay u noqdaan kuwa shaqadooda qabsada. Xamdilaki Maxamed Daahir, CWTV, magaalada Caabudwaaq. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegtay in la gaaray waqtigii dib u qiimeynta lagu sameyn lahaa waajibaadka xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya oo ay dowladdu ku eedeysay in uu yar yahay awoodda uu ku bixinayo taageerada siyaasadeed iyo caawinaadda farsamo ee ku saabsan ajendaha dowlad dhisidda Soomaaliya. Qoraal ka soo baxay danjiraha Soomaaliya u fadhiya qaramada midoobay ee loo gudbiyay madaxweynaha golaha qaramada midoobay ayaa waxa lagu sheegay in xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya uu hoos u dhigo tallaabooyinka horumarka ee ay sameynayso dowladda federaalka Soomaaliya, iyadoo taasi beddelkeeda uu xafiisku warbixintiisa 3 biloodba mar ah ku sheego ka falcelinta dhacdooyinka dowladda federaalka ee Soomaaliya. Inkasta oo ay jiraan horumarada ay dowladda federaalka ee Soomaaliya ku tallaabsatay sanadihii ugu dambeeyay, xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya waxa uu muuqataa inaysan faafinaynin dadaalka iyo himilooyinka la xaqiijiyay ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ka wada dhulka. Tani waxa ay sabab u tahay in dowladaha iyo ergadaha ay noqdaan kuwo faragelin ku sameynaya dhacdooyinka iyada oo ay yar tahay awoodda ay ku bixinayso taageerada siyaasadeed iyo caawinaadda farsamo ee ku saabsan natiijooyinka muhiimka u ah ajendaha dowlad dhisidda Soomaaliya. sidaasi waxa lagu yiri qoraal ka soo baxay danjiraha Soomaaliya ee qaramada midoobay Ambassador Abuukar Baale. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa sidoo kale qoraalkeeda waxa ay ku sheegtay in ay ku baaqayso in la ilaaliyo madaxbannaanida lagana digtoonaado in la soo farageliyo arrimaha Soomaaliya, gaar ahaan arrimaha doorashooyinka. Hadda in ka badan sidii hore iyada oo daneeyayaasha siyaasadda ee muhiimka ka ah Soomaaliya ay ku heshiiyeen qaabka doorashada, waxaanu ka codsanaynaa golaha amniga iyo saaxiibada caalamiga ah in ay inaga taageeraan dadaalka si aynu u fulino dadaalada aanu dalkeena ku kobcinayno, ayaa warbixintaasi lagu yiri. Dhawaan ayay ahayd markii wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya James Wan uu golaha ammaanka u gudbiyay warbixin 3 biloodle ah oo ku saabsanayd dhacdooyin ka dhaca 3 biloodba mar magaalada Muqdisho iyo guud ahaan dalka Soomaaliya
ee ay ku tallaabsatay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Ciidamada dowlad goboleedka Jubbaland ayaa waxaa la sheegay in toddobaadkani ay weeraro qorshaysan ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolka Jubbada Hoose, isla mar ahaantaana ay ku dileen saraakiil ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab. Taliyaha guud ee ciidamada General Aadan Maxamuud Ibrahim Kojar ayaa waxa uu sheegay in howlgalkani laga sameeyay wadada isku xirta deegaanka Janaay Cabdallah iyo Buulo Gaduud, kuwaasi oo mararka qaar weeraro ay ka fuliyaan ururka Al-Shabaab. Dhinaca kale ayaa waxa uu sheegay in howlgalladii ugu dambeeyay lagu burburiyay saldhigyo ay ururka Al-Shabaab ku sugnaayeen, sidoo kalena lagu dilay xubno ka tirsan saraakiil sarsare oo ururka Al-Shabaab ka tirsanaa. Inkasta oo saraakiisha ciidanka Jubbaland ay toddobaad walba sheegaan in ay howlgallo qorshaysan ku dileen saraakiil ka tirsan ururka Al-Shabaab, ayaa haddana waxaa jira weeraro weli ka dhaca deegaanada maamulka Jubbaland, iyada oo weerarkii ugu dambeeyay uu ka dhacay deegaanka Baarsanguuni. Guud ahaanba daawadayaal waxaynu intaasi ku soo gabagabaynaynaa warkii telefishinka Caabudwaaq. Anigoo ah Maxamed Cabdi Jalaqsan ayaa idinla socodsiinayay tan iyo kulanka iyaga xiga midkan. aniga iyo inta kala qayb qaadatayba waxaynu idinkaga tagaynaa sidaas iyo amaana Allah. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh. nabadu waa furaha nolosha. haddii aadan nabad haysan ma helaysid fursad ay wax ku baratid, ma shaqaysan kadib, ganacsiga ma furan kadib. ebo warligo nabada ebo ummato nabada ebo wanu manahi ebo wanu jaahilnimo iyo alla ka cabsi la'aan baa dulmi dhasha. dulmi waa wuxuu dhalaa qabyaalad baa waxay dhashaa qaran la'aan, qurux la'aan, qaynuun la'aan, fursho la'aan, qadarin la'aan, qabad la'aan, moogta qas iyo qalalaasta iyo qawrac iyo qax iyo hoog iyo boodhan bay dhashaa. ebo warligo nabada ebo ummato nabada ebo wanu manahi ebo wanu manahi ebo wanu manahi ebo amis. nabigu calayhi salaatu wasalaam markii uu ka warramayay ducooyinkiisa waxaa ka mid ahayd inuu yidhi allahuma inaa nas'aluka al-amna wal-iimaan, ilaa waxaan ku weydiisanaynaa iimaan iyo ammaan. marka ammaanku waa shayga keligiisa oo ka qayb qaadan kara qofku inuu waxa weeyaan wax fiican oo la taaban karana uu la yimaado. waa nolol oo nabad la'aan waxba maana baranin, heerka ammaanta joogana ma aanan gaarin haddii aanan nabad haysan. shirki la qabtaba adoonshina warshoosh loo nabad dashaasha iniyo shikaakiyo dood shuhuubala iyo shaloombiyo muran waxsiishiga iyo la shahoor hadal shikar samaho adoo shayba sheegta nuxur daran la shanshor meel shidee noqoto shacabigu mar rabe ha laga shiro. shira danta guud u shuureeyo noo sheega wanaag la shaacin karo ushimihi sharwado shib naga dhahaa. intay garmaqaate iyo garaad xumay noo tasheen maxaa dhacay guuldariya gaf iyo ceebaan harayn. gadoodkii muxuuna baday, maxaa gacal kala anbaday, maxaa gaariyo ninkeed isgoobaan war iska hayn, maxaa odag guuyo dhaqay u go'ay gaajiya haraad, maxaa reer gaan ahaa gantoomee gaban ka haray, maxaa guur seegtay inan, maxaa godob layska galay, maxaa gashi layska dhacay, maxaa guryo nabad ahaa la gubayee galangashaa, maxaa gacal iyo dadbaha colaad loo kala guntee isgowracay sabab la'aan, dagaalkii lama gartaan muxuu go'ashayna badan. nabadi macaani necaw udgooni iyo barwaaqada nimca lagu qaboobay inta naasirmaano laga jaqo nafaqaaday naxariista eebaay
niyadana ururi naftayda ku jecelo raja aan nusqaamayn kugu naawilaysi